bismillaahi raxmaani raxiim saaxiibadana qiimiga badan meel walba oo aad joogtaan kusoo dhawaada halkan waraadaya iyo tv-ga caalamiga hami xaruntiisa magaalada beledweyne waxaad kusoo dhawaataan warka 24 saac ee ugu dambeeyay kuwii ugu xiisaha badnaa waxaase ka mid ah hay-adda FAO oo qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ayaa ka digtay in anyax hor leh uu kusoo wajahan yahay dalkeena Soomaaliya barnaamijyo xoogan oo maanta ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe cudurka COVID-19 oo haleelay wiil uu dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump iyo qaramada midoobay oo shirka leh si ay u ogaadaan dhaqaalaha soo gala dagaalamayaasha Al-Shabaab qodobadaasi iyo kuwa kale oo fidsan قولوا ديار جروبا markale isku soo noqod wacan saaxiibada qiimaha iyo qaayaha inaga mudan ee nagala jaan qaadayo barta aynu YouTube-ka ku leenahay haddii ay tahay markii kugu horeysay halkan fadlan nagu soo biir oo subscribe saara channelka sidoo kale la garay videogan lana wadaag asxaabtaada aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay mar kale isku soo noqod wacan maalinimadu waa khamiis taariikhdu milaadiga ku beegan tahay 15 bisha Oktoobar sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii aad soo daawateen oo fidsan